صومالنا سوداننا وسوداننا صومالنا. حكمته وحي لدي قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا كفتن كي أنكسو قبقبيو وحاكم مغتان يصير ما حد كان العدالة محاد حي وحي يقصد علي قبر جنبلول كتمت ريرفقوي أنا هاي اللين مركي لا يري قبرنا وحي كتمت جنبلول وهل كان وعذرا يكدكتي كبعد وحي يقصد حكتي هبلك لو يرى يقول إن نونو إن معو بحيرة دتك محمد برتا أيضا ليه اللي أقامك مركا هنيئا رير أو معو يرير أو نونو iyo jambalul jinki afgooye inay ka yimaadaan maanta waxbarashaha kan ay ka qalin jabiyaan al-ilmu miftahul ula lam yabqi baban lis-sa'adati mughlaqa ya magarta ya ماذا قال شاعر يا استاذ بالكد تكتسب المعالي gabar allahayd habeenan soo dhafarnayaan soo jeednayo aan ku soo gaarnay heerkan miraheedii maanta laakiin waad guratay Soomaa بالكد تكتسب المعالي waxa lagu gaaraa dadaal هذا دونيسي إن غير كذا أدلافتي ومن طلب العلا سهر الليالي ما قال نكى دونيو ميلسر إنه قال وإنه هبينكي سوجي ذا هذا دقني ما أدرتني هبينكي خوري أو سيحو يا وإذا نام غير في دجى الليل فسر دقنت هذا هبينكي سيحتني هذيك سوجي يا بحي النيول بيوحو أبورتو قرني يا سما ومن يزرع الشوك يجني ثماره ننكي قضح أبورتنا قضح لو قرنا ولا حزد الزرع إبان نين ولي بنا وحي أسيق أبورت ولا محالة إنه قرنا مركب ماشان وجوه فربضان صاحبه أيام ماشان جوغان صديق يا جوغان كوليرا جوغان كل نمان أساتذة الكرام أستاذ فوزي كل إيو وحانو ملايين يا مانت حوغا هدان وحياو بدن أن تورتوري لها وحانو ملايين يا رير عرب مدوة كبديهم بيريلي dhalinyarada iyo ardaydeeda markaan beeraha kaliya lagu habsaami doonay waxbarashada waa la sii wada joogaa yaan la idinka badin heelay rahmaan rahiim thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin amma ba'd dhammaan ka soo qayb galayaasha sharafta leh munaasabadan qiimaha leh oo ay maanta nagu sharfeen inaan dhammaan ka soo wada qayb galno qof waliba mansabka iyo maqaamka uu ku fadhiyo anoo ku ixtiraamayo guud ahaantiina waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan filayaa ma'hadka maama aamino oo uu gudoomiye ka yahay walaalkeena maxamed xuseen eenow ma'hadka waa laga hadlay dufcadii ugu horeyso inay ka baxayaan ardaydan quruxda badan ee qiimaha leh dalka iyo dadka Soomaaliyeedna ay u ooman yihiin wixii ay soo barteen inay helaan miraheedii iyagana ay gurtaan aniga waxaan si gaar ah u tilmaamayaa aqoonta aan u leeyahay Dr. Enow inuusan kaliya aanan ahayn ruux bilow waxqabadka hadda maanta idin muuqda ee ma'hadkan nin la kowsaday doctorku wuxuu ahaa dalkan xaaladihii ee uu soo maray min alif ilaa ya nin dhexda ooga jiray wax badan oo aan dadka qaarkii aan ogeyn inuu yahay dadka maanta la dhihi karo dhinac kasta Soomaaliya marka loo baxo siyaasad amni dhaqaale bulsho oo waxbarashadu qayb ay ka tahay inuu ahaa halyeeyada aan maanta la ilaawi karin ee ka soo shaqeeyay dalkan dhinacyo kala duwan xataa uu ka mid ahaa xubnihii dalalka ama ururada caalamiga ama kuwa heer gobol ee wadankeena isbarbartaagay oo ay ka mid ahaayeen ama kuwa qaramada midoobay ka socda ama kuwa midowga Yurub ka socday ama kuwa urur goboleedyada ama African Union ama Arab League yani wuxuu ahaa
kaadiriinta ku dhex jireen dhammaan wax kasta oo Soomaaliya khuseeyo xilligii adkaa maantana asigoo weli soo taagan ee halgamayo runtii aad baan ugu faraxsanahay maantana macahad dhalinyaro Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalna isu diyaarinayaan ama qaarkoodaba ka sii aflaxayaan maanta macahadkan loogu magac daray Maama Aamino oo aan iyadana meel dheer ka soo jeedin isla qoyska waxa isaga maanta ee udub dhaxaadka uu yahay dhammaan ay yihiin dad door mug leh ku leh waxa ummad lagu qiimeeyo meeshii uu sareysay ee ah waxbarashada maanta inay ka soo dhex muuqdaan sidaasi darteed waxaan leeyahay Dr. Enow ilaahay ha ka abaal mariyo waxa tahay qof qaniyo aan taariif ah qof ma aragtay la soo bandhigo la muujiyo qof kasi badan inta taariikhda aan sheegay ka badan inaad leedahay waliba hiwaayad nin wax qorana inaad tahay oo taariikhda rag far badan oo aan maanta inta badan aan isleeyahay doorka uu ku leeyahay magaca ayaga ay sitaan iyo meesha uu gaarsiiyay laftirkooda qof iyo laba hadaan maanta ka xusi lahaa aad qaarkiina aad u garaabi lahaydeen inuusan waxba ka tagin taasna waxay ii cadeynaysaa gadaal ayaan ka kaftami doonaa laakiin waxaan hadda ka hormaraynayaa dardaaran maadaama waqtiga uu aad ciriiri u yahay dadka ka soo qayb galay ay yihiin dad aad u qiimo badan inteena Soomaaliga ah waa isku dhiirigelinaynaa waa waajib calayna laakiinse dadka maanta amaanada shalay ee annaga nagu lahaa inaan maanta aan u gudno la rabo waa walaalaheena dalka Suudaan oo halkan soo camiray oo ninkiisii hayaha uu ahaa safaaradda Suudaan ee hadeer naga dhaqaaqay walaalkeen Cimaadidiin iyo inta kale ee fadhida halkan oo uu ka mid yahay ustaaz Maartay ee Xuseen iyo ay ka mid yihiin kuwa islaamka ka socdo kuwa jaaliyada ka socdo wax kale oo aan dhahayo male laakiin kalimateen hadii aan iraahdo من قلب يفيض الغبطة والبهجة والسرور أريد أن أشكر خالص الشكر والتقدير إلى السودان التي علمتنا وزي ما ذكر الأخ السيد علي التي نحن منها وإليها وليس أمامي إلا أن أقول لقد صدق الفنان الغالي الذي ردد بكلماته صومالنا سوداننا وسوداننا صومالنا إن شاء الله نتمنى أن تعود الأمن والاستقرار إلى السودان الشقيق وأن تعود أيضا إلى مجريها الطبيعي المياه التي نحن وأنتم دخلت في متاهات سياسية وأمنية في آن واحد لكن إن شاء الله إن مع العسر يسرا وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله ولا ليال دمان هل كان معلمين آدو قيمة بدن وأي مانتا أي مدينين حق أي كليهين ودن كان أيان ربا إني أرضي هاي إنان إذن كل دردارمو معلنك وحا أو كدغن يحي شمع وغبتا لكن أساقو غبانيو أيا هدنا لغو افتينسدا ما قرت sidaasi aawadeed qiimaha macalinka adduunka uu ku leeyahay wax badan ayay u baahan yihiin in aan isku baraarujino haday nahay Soomaali ama haday dawlad ay tahay iyo hadii shacab ay yihiin ardayga laba waalid buu leeyahay waalidna waa waalidkii soo koriyay ee ku soo talay tacabeelay oo hooyada ay kamid tahay aabaha uu kamid yahay kuwaasi waxay soo koriyeen jirkooda muuqooda iyo ilaa xad ayaga ay soo gaarsiiyaan inay wax baraan laakiin yaa wax baray yaa qof jira ka dhigay yaa bulshada qof qiimo ku leh u yeelay isma weydiiyaan ma gartay waxa laga yaabaa arday meeshan maanta ku jiro bari inuu noqdo xataa madaxweyne
ama inuu noqdo gudoomiye baarlaman ama prime minister uu noqdo ama wasiir uu noqdo ama safiir uu noqdo ama inuu noqdo taliye haddii damiir uu jiro ardaygaasi wuxuu macallinkiisii uu ka mudan yahay inuu fadhiga uga kaco maxaa yeelay xigmaddu waxay leedahay qum lilmucallimi wa fiihi tabjiila kaada almucallimu an yakuuna rasuula uga istaag macallinkaagii adoo weynaynaya istaag maxaa yeelay macallinka wuxuu ku dhowaaday rasuul maxay yiraahdeen khulafaa raashidiintii oo sayid cali ugu horeeyo man zaadani harfan akun lahu abdan ninkii kalimad aniga ii ziyaadiyo adoonkiisa ayaan u noqonayaa qisaan idin sheegayaa boqorka dalka Cumaan ayaa weligiis airportka ma tagin wafdi ma soo dhaweynin wafdiga waa loo tagaa waa la soo qaadaa qasri riyaasa ama qasri malik ayaa loogu keenay laakiin hal maalin uu airportkana aaday xaras dawlina u sheegay oo qoladii amnigiisa ilaalinaysay iyo maamulkiisaba bari inuu airportka uu aadayo kalimad qariiba ayay noqotay fi nawciha markaas uu yiraahdo la ii diyaariyo gaarigii oo asaga ee ku aadi lahaana waa loo diyaariyay shufeer uma baahniyo gaarigii subaxnimadii isaga gacantiisa ku kaxeeyay airportku la aaday waxaasoo dhan waxay ku ahayd reer Cumaan arin aad oo runtii ay la yaaban yihiin airportka markuu tagay diyaaradii soo degtay ayaa calaamadni taa'ira diyaaradda gudaheeda ayuu isaga lugihiisii ku tagay qof buu gacanta ka soo qabsaday wuu la soo degay gaarigiisuu soo saaray suu u soo waday qasrigiisii ama gurigiisii madaxtooyada ama boqortooyada ayuu keenay halkaas uu maartay isaga iyo labadoodii ay meeshaasi si fiican isku qaabileen dadkii alla is weydiiyay marka man hada rajul wariyaa way ninkan ala hada almustawa oo boqorkii oo aan waligiis airport aadin oo baabuurkiisa intuu ka haystay airportka ugu tagay oo diyaaradda ugu tagay oo gacanta ka soo qabtay oo haddana gaarigiisa soo kaxay oo keenay gurigiisa boqortooyada waxa la yiri markii la weydiiyay ee asaga la yiri ninkani muxuu ahaa boqorow macallinkaygii buu ahaa laga yaabay maanta macallin ama nin ee xoogaa yar isma hadiyay ama uu xil yaro bari la iska qaadayo loo dhiibay inuu macallinkiisii bulad buruuf asigoo ku jiro حتى إنه سلامة إسكاداف إنه بستي أسيق وكوكعي إني سنبور كوريد بمغرتها حافظة حمر متكم من أهن وحن بمغلاي أرضي معلق يسيد دلي مغرتها إنتين مركا أنك إن كلا جرنا منك دد كيسي بقر أها إنتو بحي أيربورك أوتري أو سوق هذه وسيدا سوق خلا أو سمي حتى هذه القصة مت أنا كأرين أيا ودن كان السودان هذا أنا عن كهرلينه أيا جعفر النميري the same case أيو سمي أسوق بابور تيسي إسكون تبى جرتو أيا ليش شيء أيا هالمر نين وضد مرة أيا أسوق أنتو أركي يوري جوجية بابور تي هالمر للجوجية أسكرتي كبدا دابتي محل أركي باليري نكاس إيسوق بتوير نكى بالله سوق بتي بابور كي إيسوق ساروير بابور كي بالله سوق ساري بابور كي مركي أسوق ماشي أسوق جوري جيسي قصر الرئاسة وأسوق أو جيستي مدحتويري أيها الله يسود الجيويري هل كيبا نكى لو سود الجي أسوق ونحسيه هاي ذاتك محي هاي بسويدين يان أسكرتي سوق بتي ويا بينهين نكان محو أهابال السوقيا لمان كل جهاز أمني قد هو التاجيا مركزا وحالي فخامة الرئيس من هذا الرجل ومن هذا الشخص أسيق نوحو يري ومعلن كي يا أسيق اللغينا يا إنام بابور كلافه قصة كلا أيا وحي كلا عدي مصر نمبا مالين عد وحو سوشي طيب بطرماكس وفينوس تواوين بطرماكس وحاو مالين يا دلين يردين هذا تمت قاركوض إني أقوم ويان بطرماكس وحاو فينوس أو waxa lagu shubi jiray oo saas loo bambay jiray oo weyn
ninkii gurigiisa taalo maanta motor ma artay qof nalalkan shidaayo ka muhiimsan uu ahaa ninkii baa wuxuu wadaa batarmaankiskii waxa way waa fi maalin cad way qoraxda soo jeedo markaasuu leeyahay markaas magaaladii dhanba qofkii arkaba ninkan markaas maxaa qofkan maxaa ka maqan markaas maada yucaanihi خلاص wuxuu leeyahay markii dambe waa la iskugu yimid إعلاميين يقولون على الإسكوب وذي يمد وحلا يري وحير فرصة ممكن تدينا قاسوا يرأي مركاسا محاكو كلفي مالين عد أو قرحة أو أيضا هي الظهور نما أي جوكتو إن أتصور قادة مصباح أما بطرماكس أو أديك اللامي أديك اعتماد أو أدلذا مثلا أين محاكا رما يليري ماذا ضاع منك يا مركاسو وحكو جوابي وحي قال له ما عرفتين ها العدالة ويري ضاعت مني العدالة ما قلت يا مركاسو وحالير كيف ضاعت منك مركاسو أرضي جيجي الطالب الذي أنا علمته يا أصبح اليوم وزيرا ومن كبار الدولة هاي مركاسو بدلا من أن أهنئه أو يقدم كلمة الشكر على الأقل إلي يا فقد أهانني ويري ما قلت يا وزاردي أساق وكتر سناي وولي إنتاس وكيهي أساق ولي شغالة الدولة حتى هير أقاسم آنان قارين أيام مالين والبأرجي وقرت أرضي واي وأساقوا قرندون أولها أيو حانشدي سيحسو صار يا استلام كاس عمل نواجرها كورم يا إلهي إذن كما ديو كاس وقال ما قرت يا يا كدو عيست ما قرت يا مركا آدبان رنتي وفرح سنة هاي أن أكون ضمن المدعوين أو المشاركين في هذه الحفلة السعيدة وهذه المناسبة الميمونة مركا وحواي أنك هذا وحواي لا نستطيع أن ننكر ما لها من فضل علينا السودان الشقيق التي علمتنا وجعلتنا في هذا المنصب وعلى هذا المنبر الذي نحن سميتمون الآن فالله يرفع شأنكم مركا وحواي دكتور إيدو adiga iyo maama Aamina hadaan kaftankayga aan ku soo gabagabeeyo waxa ka muuqataan isirmaahadkan al-Adaala maxaa dhacay waxay igu soo dhacday gabar Jambaluul ka timid reer Afgooyan ahay ilayn markii la yiri gabadhan waxay ka timid Jambaluul oo halkaan wacdara ay ka dhigtay ka bacdi waxa igu soo xigtay habla kale oo loogu yeeray gore ina nuuno ina macow baxayna dadkan wax ma bartaan ayadoo la leeyahay ogaamo marka hanii'an reer Macow iyo reer Nuuno iyo Jambaluul jiinkii Afgooye inay ka yimaadaan maanta waxbarasho halkaan ay ka qalin jabiyaan waxbarashada hal lagu dadaalo fahiya miftaaxul ula al-ilmu miftaaxul ula lam yabqi baban lis-sa'adati mughlaqa ya magarta ya bilkaddi ماذا قال شاعر يا أستاذ بالكد تكتسب المعالي قبر الله يتهبينا صوت فرنيا صوت جدنا يو أنكسو قارن هيركان ميره هذه ما أنت لكن مرات قرتي سما بالكد تكتسب المعالي وحلقوا جارا ذال دونيسي إن غير كذا أدلافتت ومن طلب العلا سهر الليالي مقر نكي دون يو ميلسر إنو قار وإنو هبينكي سوجي ذا هذا دقني ما أدرتني هبينكي خوري أو سيحو يا وإذا نام غير في دجى الليل فسر دقنت هذا هبينكي سيحتني هذيك السوجي يا محايلني والروحو أبورتو قرني يا سما ومن يزرع الشوك يجني ثماره ننكي قضح أبورتنا قضح له قرنا ولحزد الزرع إبان نين ولبنه وحي أسيقو أبورتو ولا محالة إنه قرنا مركب ميشان وجوه فربضان صاحبه أيام ميشان جوغان صديق يا جوغان كوليرا جوغان كل دمان أساتذة الكرام أستاذ فوزي كل إيو وحانو ملايين يا مانت حوغا هدان وحياو بدن أن تورتوري لها وحانو ملايين يا رير عرب مدوة كبديهم بيريلي دلينيرا يا أرضي هذا مركان بيراها كلي لو حبسامي دوني وحبر رشاد والسين وذا جوغا يلا إذن كبدين هيلي أدومات ماما أمينو كوليج مسك دوا يتوسو يتابسي